mucaaradka Soomaaliya ayaa u dabaaldegay natiijada labadii kursi ee ugu horeysay doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad. labada kursi oo niyad ku rida doorashadii waqtiga dheer la sugayay waxaa ku soo baxay Mahdi Maxamed Guuleed iyo Biixi Iimaan Cige. mucaaradku waxay waqti dheer dalbanayeen in la hubiyo hufnaanta doorashada, inaan jufooyinka la boobin, in la cadeeyo habraaca farsamada loo marayo xulista ergada iyo in laga fogaado ku tagrifal awoodeed. balse asbuucan waxay mucaaradku daawadeen erga aan la aqoonin oo wax dooranaysa. lama yaqaano lamana cadaynin sida loo soo xulay ergada doorata Mahdi iyo Biixi. mucaaradkuna sharaxaad uma hayaan, waxayna muddo ku dirirayeen in la isla fahmo hab xulista ergada si uusan qof walba ula imaanin qofkii uu rabo, iyadoo laga tagayo ergadii saxda ahayd ama ergada beeshii kursiga lahayd. waa markii ugu horeysay taariikhda doorashooyinka Soomaaliya ee uu masrax yimaado musharax aan la aqoonin muuqiisa. kuraastan waxaa la marsiiyey dariiqii maamul goboleedyadu mariyeen sanatarada ee ahaa musharax la sii ogyahay inuu soo baxayo iyo malxiis laga bixinayo isdiiwaangelinta. haddii doorashada xildhibaanadu ku dhammaato musharax la sii ogyahay inuu xildhibaan noqonayo laguna aqbalo, sidoo kale doorashada madaxweynuhuna waxay noqon doontaa natiijo la sii ogyahay iyo musharaxiin malxiisa ay leeyihiin dadka la yaabka ku tilmaamay jiibinta mucaaradka ee shanqar walba oo taagan. xasan sheekh maxamuud, shariif sheekh axmed, xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa dhammaan soo dhoweeyey una hambaliyeeyey doorashadii muranku ka dhashay ee Mahdi Guuleed. kal hore mucaaradku waxay dureen oo ay diidmo maldahan dul dhigeen sidii ay madaxda maamulada u maareeyeen doorashadii xubnaha aqalka sare. waxayse aqbaleen maanta doorasho taas ka sii fasahaad badan, ayuu yidhi mid ka mid ah xubnaha reer waqooyiga ee la fajacay sida ay mucaaradka Soomaaliya ugu adkaatay inay xaaladaha taagan aqriyaan. haddaba aqbalaadda mucaaradka ee natiijooyinka la sii ogyahay maxaa ka dhalan doona? mucaaradku iyagoo intooda badan og dooda jufooyinka ee ka taagan kursiga uu qaatay Mahdi Guuleed, iyagoo fahamsan inaan doorashadan loo raacin habkii lagu ballamay, iyagoo la socda in la isku haysto hanaankii loo maray erga qorista, iyagoo indhahooda ku arkay musharaxiin isqarinaya oo dariiq xun u jeexaya doorashadii darteed ay dagaalka u galeen. haddana intaasoo dhan inta iska indhatireen ayay aqbaleen natiijada, waxaana la aaminsan yahay inay wixii hadda ka dambeeyay sugayaan qodobadan. 1. doorashada inta dhiman waa la boobi doonaa, waana ku qasbanaan doonaan mucaaradku inay aqbalaan natiijada sababtoo ah jidkaas waa furmay, iyaguna waa aqbaleen inuu furmo. 2. xubnaha mucaaradka qaar ayaa u sharaxan kuraas xildhibaannimo, balse hadda waa laga qaadan karaa oo waa laga xoogi karaa kuraasta ay u sharaxan yihiin. cabashadooduna macno uma samayn doonto shacabka, waxaana loo arki doonaa rag dantooda u qaylinaya oo ka tanaasulay dantii guud. 3. waxaa ka dhimatay mucaaradka fursad dambe oo ay ku iibiyaan inay ka soo horjeedaan ku tagrifal awoodeed maadaama ay mashruucii Mahdi u sacabtumeen. 4. waxaa shaki badan la gelin doonaa inuu dalkani ka jiro mucaarad mabda' u taagan maadaama ay kooxihii mucaarad ku noqdeen niman wax walba u sacbiya sharci iyo sharci darro labadaba. 5. hogaamiyaasha maamul goboleedyadu waxay heleen dariiqii ay kuraasta ku xoogi lahaayeen. haddii ay dhacdo in kuraas la isku xoogo ama la kala xoogo, madaxweyne Farmaajo waa ninka ugu faa'iidada badan dalka, mucaaradkuna iyagaa halkaas ku jaban. maxay kula tahay adiga?